السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وايد سلامي إلهي وحان إذن كجرجين يا عمري دير عبادة ميسترن يا عفمادن مركزتو جوفتان كسو دوادا جنالكس أنفع واد مهتنتهين كوين هورئي وحرنا كوين عصبنا سو دوادا واد نفرن كسو دوادا وجي فرن كسو دوادا قعم فرن كسو دوادا واد مهتنتهين فضلا هادي أدنو عصبت هاي سبسكرايب حناجا إلوبين وبلاش وادنا محطن تحي هدي أد كهشين اللايك صار كملي كفرو تذكرنا لسي وذاك أديجو عادي أد محطن مركب معنا إن شاء الله حنجع لسينا إذ لو ذاقو دور قضب ولا الشنقة كصابصن وحيابها قار بيشة دلتي تذكر بيشة دلتي تذكر سيدا ودها bisha aad dhalatid ama dadka bishaas dhashay lagu arkay tusaale ahaan bisha koowaad oo kale dadka dhashay waxyaabaha lagu arkay waxyaabaha kamid ah wuxuuda wanaagsan iyo wuxuuda xun oo kale marka waxaan soo diyaariyay ilaa bisha koowaad insha Allah ka bilaabi doona insha Allah ila soco bil kasta gooniya isku dayana u duubo haday ii suurtagal weysina hal mar wada duubo insha Allah bisha koowaad oo ah bisha January ama Soomaalida si u yaqaanaan Janay ama Muharram af Arabiga bishaas koowaad oo kale dadka dhashay waxa lagu arkay inay yihiin ka xumaanin fadlan because waa wax isku qasan waxa xun iyo waxa fiican waxaan lagu ogaaday baaritaan la sameeyay in dadka dabeecadahan ama waxyaabahan lagu arkay oo isku qasan wixii wanaagsanaa iyo wixii aan wanaagsaneyn oo kale laga yaabo inay run ahayn laga yaabo inay run tahay qof kasta asaga is og waxyaabaha inta ku soo sheego way ka badan yihiin laakiin ana ilaa dhowr wax oo muhiim ah ayaan ka soo qaatay hadii aad isku aragtay waxyaabahan aan halkan ku sheegi doono fadlan comment ka hoos iigu qor hadii ay run tahay hadii kale labadaba adigoo aad u mahadsan marka midka ugu horeeya waxa weeye dadka bisha koowaad dhasho Janay ama January waxa lagu ogaaday inay yihiin dad madax adag oo waxay ka rabin la marsiin karin marka qaar waxa la dhihi karaa madax adag uu fiican yahay Soomaha marka qaar ma fiicno qof kasta soo arkay ku xiran tahay meesha aad ka taagan tahay so marka waxa la hayd dadkaas way madax adag yihiin waxa kaloo dhahay xireen waa dad hami ee leeyihiin higsi iyo wax weyn inay sameeyaan inay horumar fiican sameeyaan inay maxay wanaag sameeyaan hamigoodu uu badan yahay uu soo weyn yahay waxa way dad adag oo xayi ah oo xoog leh waxa way dadka aad u daawada oo dadka ma aragtay fiiriye meesha tagaan waxay sida wax u qabtaan sida wax u cunaan hab dhaqankooda sababtay waxaas u sameeyaan waxa la soo ogaaday inay yihiin inay dadka wax ka bartaan si practical oo kale indhaha macallin u ah so dadkay wax ka bartaan si ayaga dadkaas waxay ka barteen ayaga uga cashir qaataan kadibna waxay jecel yihiin Allah dadkaas inay dadka wax baraan waxa ayaga khibradooda aqoontooda iyo xirfadooda iyo ma aragtay hadiyadooda wixii Ilaahay ayaga talent ahaan Ilaahay u siiyay waxay jecel yihiin inay dadka sii baraan oo kale marka dadkaas waxay kale aad u jecel yihiin dadka bisha shanaad dhashay midkii I think this is the waakii shanaad inay dadka caawiyaan wali waxay jecel yihiin dadka inay ka caawiyaan sidii u gaari lahaayeen hamigooda dadka kale hamigooda horumarkooda sidii dadkaas noloshooda u horumarin lahaayeen sidii dadkaas farxad ugu noolaan lahaayeen sidii dadkaas u raadin lahaayeen waxa ayaga hadiyada ama hibada Ilaahay u siiyay gaar u siiyay so dadka bishaas dhasho waxay leeyihiin khibrad ma aragtay ayagana wax isku baraan dadka cashir ka qaataan oo dad maskax furan dadkana wax ka bartaan ka bacdi waxay ay ka yaqaaneen ama dadkaas waxay ka barteen dadka sii baro haddana si xoog la u galiyo dadka kale inay dhiirigeliyaan tusaan dadka kale rabitaankooda ama waxa ay ka qaaska Ilaahay u siiyay ama waxa hamigooda iyo loyalkooda ah
marka waa 5 qodob haddii idin dul maro. kan koowaad wuxuu ahaa dadka bisha Janaayo ama January dhashay in baaritaanka waxa lagu soo sameeyay la soo ogaaday inay yihiin dad madax adag oo waxa ay ka rabeen la marsiin karin. haddii taas run tahay fadlan hoos noogu qor waxa ay kula tahay. tan labaad waxa la soo ogaaday dad hamil ah inay yihiin. tan saddexaad in dad adag yihiin as well oo maaragtay isku kalsoon oo adag oo maaragtay wax la marsiin karin. kan afraad oo ahaa waxay u daawasho tagaan dadka kale si wax uga bartaan ayakan wax isku baraan. kan shanaad oo ah waxay jecel yihiin dadka inay caawiyaan waliba qaasatan ay ka caawiyaan dadkaas si ay ayaga isku bartaan ay u ogaadaan maxay ahayto sida isku horumariyaan ay u ogaadaan waxa diyada Ilaahay siiyay hamigooda iyo horumarkooda iyo rabitaankooda waxa qaaska ah ee Ilaahay siiyay. marka daawade haddii waxaana meesha kusoo sheegay ay run yihiin ama ay run aysan ahayn ra'yigaaga fadlan hoos noogu dhaaf adigoo aad iyo aad u mahadsan. mahadsanid waa anigoo ah Shukri Aadan oo idin daadihinayay. waxaan isku dayaa inaan qaybta labaad ee dadka bisha Febraayo dhasho ama February dabeecadaha lagu arkay kana iyo maaragtay iyo maxal dabeecadaha lagu arkay iyo hadii ay run yihiin hadii kale ma ogi dadka dhan lagu wada arkay laakiin dadka la tiro koobay ama dadka la baaray dabeecadahooda ama dadka la daba galay ama dadka loo fiirsaday wixii lagu arkay dad badan oo kumanaanka badan la baaray lagu soo ogaaday. marka hadii maaragtay waxaan sheegayaan ay run tahay adiga qaasatan bishii Janaayo dhalatay ama January aad waxaan isku aragtay fadlan ama aad isku arkin fadlan hoos ku soo qor si aan ula socono waxaan inay run yihiin ay jiraan. waad mahadsan tahay daawade insha Allah isha idagta usii taag February hadaa dhalatay because February ama February waa midka kale aan ku xijin doono. hadda waa isku dayana ku daba xijiyo kan ii kaadi waxay insha Allah mahadsanid.